بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسو دواده muuqaal kale oo aan kaga waramayno sideebaad guul darradaada guul ugu bedeli karta in la guul darreystaa waa sunnaha nolosha in qofku hooseego oo uu gafaf badan ku dhaca iyaduna waa sunnaha nolosha laakiin inuu qofku guul darrada joogteeyo oo caqabadii haystay uu ka bixi waayay taas guul darrada iyo foolxumada nolosha haddaba waxaan wadaagi doonaa dhowr qodob oo aynu ka baran doono sida aynu guul darradeena aynu guul ugu bedelo koow hala noolan wixii tagay noloshu waa tagto timaado iyo taagan wixii tagay way tageen maxaan iyo qaraar wixii ay lahaayeenna way kula dhaafeen qalbigaagu iyo naftaadu iyo ku nagaan oo ku dul xasaleen shalay iyo wixii tagay markasta oo aad shalay xasuusato go'oto qalbigaaga waxa ku soo noqnoqonaya turunturooyin fara badan oo nolosha kala kulantay sida awgeed mar haday shalay tagtay gabiya carbeed baa wuxuu oranaya da'li dhikri al-ayami siba fa inna al-ayamu siba najmun afal iskada oo ha ka sheekaynin maalmihii tagay waayo maalmihii tagay waxa dhacay wax dhacayna tiigsasho iyo ka daba tag toona male laba ha ku fakirin wixii shalay dhacay ee tabnaa murugooyinkii guuldarrooyinkii iyo dhibaatooyinkii joogtada ahaa ee ku weeqay fikirkooda naftaada ka siib oo halkii tabnayd togan ku bedel qodobka saddexaad gafafkii aad samaysay casharka baro markaad maanta khaldanto qaladku ku horseedo inaad saxato gafkaagi inaad qaldantaa ceeb ma laakiin waxa ceeb ah inaad qaladka ku sii nagaataa inaad kuftaa ceeb ma laakiin inaad sii fadhidaa ceeb qoliyahan Jabaaniisku kolka ay dhacayaan waxay yiraahdaan intaad fooda u dhici lahayd waa inaad qadaadka u dhacdaa markaad qadaadka u dhacdo waxaad arkaysaa cirkii waxaad arkaysaa noloshii waxaad arkaysaa quruxdii kolkaas aad dabeeto u hanqal taagaysaa inaad guusha nolosha wax ka gaadho laakiin haddaad salaanta dhulka ku dhufato waxaad arkaysaa habaas waxaad oranaysaa bood waxaad arkaysaa habaas iyo nolol liidata sida awgeed wixii ku dhacay ka bara cashar ka duwa daluntii iyo godkii shalay lagu qaniinay soo waxa tirada bari dagaana istagay bari dagaa la hadago laba jeer dagana aniga istagay hagaaji fikirka aad ka aaminsan tahay naftaada waxaad soo arkaysaa inaad tahay qof wax qaban kara oo karti leh mise waxaad soo aragtaa qof fadhido oo waxba qaban karin kol kasto oo aad aaminta naftaadu inay tahay ta wax qaban kartaa waa kol kasto oo aad guusha ku sii dhawaan karto ismoogaysi oo laabtaada iyo maskaxdaada iyo maankaaga ka tirtir waxa jabka la yiraahdo jabka ha aqbalin inaad jabto ha aqbalin oo ha ogolaanin noqo lukuriyo qof soo taagan oo waaye kasto oo adagoo la kulma ay soofeeyaan hankiisa ay kiciyaan ilaa uu ka gaarayo wixii uu rabay oo dhan qodobada muhiimka daris hibooyinka aad leedahay maxaad hibo leedahay maxaad awood leedahay maxaad aqoon u leedahay xilligan aad joogtay iyo awoodaadu ma istabooli karaan mushkiladan iyo khibradda iyo waayo-aragnimada nololeed leedahay ma buuxin karaan bara sabirka iyo adkaysiga oo xilliga adag kaga gudub inaad sabirto oo aanad isdhiibin baro inaad waxyaabo badan ismoogaysiiso oo kugu caqabad ah adigoo arkaya haddana indhaha ka laabo ka fogow dadka guul darrada ka sheekeeya waxa jira dad fara badan oo haddii aad hawl u gacan qaado markiiba ka horkeenaya waxa qaban maysid dadka waxa yaqaanaa badan hortaajiraba ku daal dadka noocaas dhig looma dhigo sababtoo ah hadaad isu dhiibta iyaga waad guul darreysanaysaa haddii laakiin aad isu dhiibi weyda iyaga hubanti waad guuleysanaysaa sheekooyinka mala awaalka ee la sheego waxay yiraahdaan waa waayada adduunka midaba raxyo badan la tartansiiyay si ay u fuulaan
meel sare oo taaga raax kastaaba kolka uu soo cararo si uu fuula lagu qayliyaa waad dhacaysaa waad siibanaysaa hebelba waa kii dhacay raax kastaaba isagoo awood leh inuu koro ayuu soo dhacaa marka laga yimaado hal raax oo isagu yeermadii iyo cabsidii loogu baaqayay aan dhag jaraqu siin markii uu fikta gaaray ayaa la ogaaday rahani inuu dhagalaayay iska dhagatir wixii aan dantaada ahay iska dhagatir dadka ku yiraahdo xoo qaban karimaysid iska dhagatir dadka guuldarrada iyo yuhunta xun qofka ku beera ugu dambeyn waxaad ogaataa waxa soo dhan adigoo sameeyay inaad alla kaashato markastoo alla ku xiran tahayna oo markastoo ay guushu ku soo dhowdahay maqaalkan yar kooban waxaan ka soo qaadanay degalka ah horumarinta nafta التنمية البشرية وتطوير الذات انت سينا كوكوبينا مقال كينا يلي كوبان انت عينو كنا كلا كوكل منا وحن تيجي تجينا نبضي